asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Muna, waxaan jiraa 25 sano. waxaan rabaa inaan idin sheego sheeko cusub. waxaa jirtay gabar gabdhaha ka mid ah. gabadhaasna waxa ay ahayd agoon, cidna uma joogin marka laga reebo hooyadeeda. waxaa guursaday wiilka adeerkeeda dhalay, wuxuuna ahaa nin dulmi badan oo aad u xun. si xun ayay ula dhaqmi jireen asiga iyo qoyskiisaba, waxayna ka dhigeen sida shaqaalada guriga ka shaqaysa oo kale. habeen iyo maalinna guriga ayay ka shaqayn jirtay. sidaas ay tahayna marna inuu caayo marna inuu garaaco ayuu isugu dari jiray. gabadhan waxay ay ahayd mar kasta oo la dhibaateeyo oo ay murugo dareento, hooyadeed ayay u tegi jirtay. wax kasta oo ku dhaca ayay u sheegan jirtay, kadibna labadooda way isla ooyi jireen. hooyadeed waxa ay ahayd qof aan tabar dhan lahayn oo aan waxba u awoodin. gabadhii 10 sano ayay xaaladaas ku sugnayd. maalinba maalinta ka dambaysay xaaladeeda way sii xumaanaysay. waxaa la gaaray hooyadeed waqtiga ay dhiman lahayd, sakaraad ayay noqotay. gabadhii ayaa si daran u ooyday. gabadhii ayaa hooyadeed ku dhahday, hooyo, hadda kadib dhibkayga yaan u sheegtaa, haddaa baxda maxaan samayn doonaa, hay cidleenin. hooyadii ayaa ku dhahday, gabadhaydii, haddii ay xaaladda kugu xumaato aadna dhibaato dareento, guriga hooyadaa imaaw, 2 rakac inta aad dukato sujuudda ku ducayso. dhibaato kasta ama culays kasta ku haysto alla u sheego, asigaa kuu xalinaayo. hooyadii sidii ayay ku dhimatay. isbuuc ayaa dhimashadeeda ka soo wareegatay. gabadhii ayaa dhibkii ku bilowday, murugo ayay dareentay. way soo baxday, waxa ay imaaday guriga hooyadeed. sida ay hooyadeed ku dhahday ayay samaysay. way dukatay wayna ducaysatay. raaxo nafsaani ah ayay dareentay. sidaas ayay ahayd muddo bil ah. isbuuc walba guriga hooyadeed ayay aadi jirtay, saacado badanna way ku maqnaan jirtay. kadibna ayadoo faraxsan ayay soo laaban jirtay. qoyskii ninkeeda ayaa sidaas ku arkay. ninkii ayay ku dhaheen, xaaskaaga isbuuc walba ayadoo murugsan ayay guriga hooyadeed aadaa, marka ay soo laabatana ayadoo faraxsan ayaan aragnaa. waxaa hubaal ah in ay ku khiyaanayso. ninkii ayaa go'aansaday inuu gabadhii uu qabi dabagalo. inta aan waqtiga la gaarin ayuu baxay, guriga hooyadeed ayuu aaday. meel ayuu ku gambaday aan ayada ka arkaynin. dhimashada hooyadeed bil ayaa ka soo wareegatay. sida caadada u ahayd, gabadhii ayaa guriga soo gashay, kadibna way dukatay wayna ducaysatay. si daran ayay u oyday. wax kasta dhibaayo ayay alle u sheegatay, dhibka ay ninkeeda ciddiisa ku haayaan. ninkeedana waxa ay ugu ducaysay inuu alle uu soo hanuuniyo, waayo si daran ayay u jeclayd. sidaas ayay ku ducaysanaysay kuna oynaysay. ninkeediina waa uu maqlaayay, asna waa la ooyey. marka ay salaada dhammeeday ayay aragtay hab ayuu siiyey, wuuna ka cudur daartay. wuxuuna u ballan qaaday dhib kastoo u soo marsiiyey inuu wanaag ugu abaalgudi doono. gabadhii ayaa ducadii alle ka aqbalay. habeenkaasna gurigooda maysan aadin, guriga hooyadeed ayay isla seexdeen. ayadoo hurada ayaa qof riyada ugu imaaday, wuxuuna ku dhahay, muddo 10 sano ah ayaa qofkii kuugu dhawaa dhibaatadaada u sheegan jirtay, waxna ma kuu qaban jirin. laakiin alle subxaanahu wa tacaala hal bil gudahooda ayaad dhibkaaga u sheegatay, wuuna kuu xaliyey. sheekadeena cibradeeda waxa ay tahay, dhibkaaga ha u sheeganin qof aanan waxba kuu taraynin, ee alle u sheego dhibkaaga, asigaa wax walba kuu xalinaayo, ducadaadana ajiibayo. sheekadeena intaas ayay ku eg tahay. fadlan haddii aad janalka ku cusub tahay, waxaan kaa codsanaynaa like iyo share iyo subscribe inaa noo dhahdo.